Daawade waxaan kula wadaagi doonaa arrintii xildhibaanad Barkad Batuun oo weji cusub yeelatay. Xildhibaan Barkad Batuun xaaskiisa Mushtaaq oo la wacay gabar ay saaxiibo yihiin wacday kool taleefan ay ku wacday ay muuqaalka duubaysay ayaa muuqaalkii social media aad u gelgeliyay. Muuqaalka oo Mushtaaq su'aalo badan lagu weydiiyey xildhibaanka. Hadallada laga sheegay xildhibaan Barkad Batuun ma sax baa mise waa qalad? Su'aalo aad kaaga cajabinaya oo hadal la yaab badan ee ku hadashay Mushtaaq oo sheegtay wax aabeed uu ku hadlay in aysan waxba ka jirin, waxyaalaha la sheegay in ay been tahay. Xildhibaan Barkad Batuunna uu Somaliland ku sugan yahay. Mushtaaq oo sheegtay ayada inay jirto Itoobiya Addis Ababa cunug ee xildhibaan Barkad Batuun ee u dhashay oo la leeyahay Burhaan ay u haaso. Xildhibaanka waxaa laga sheegay eedaha aabeeda uu kasoo jeediyay in aysan waxba ka jirin, eedaha oo ka mid ah in uunan salaadin iyo gabarta sharci uu ku qabo uu ku mehersaday aanan jirin. Mushtaaq oo sheegtay in oo aroos ay wada galeen uu haddana cunug u haaso xildhibaan Barkad Batuun, aabeeda iyo reerkeedana ay kasoo horjeedaan Mushtaaq farxadeeda. Mushtaaq oo caddeysay hadallo aad u la yaab badan iyo ficilo aad ugu kaaga yaabinaya daawada ka dhawaajisay. Wixii raayana commentiga daawada waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa haddii Soomaalnimo jirto fadlan inaad channelka subscribe noo dhaad gambaleelkana aa u furtid muuqaalkan like aa la dhacdid. Waxaan hadalkan ku sii wada daawade waxayna ku sii dartay in Mushtaaq iyo ninkeeda ayada xiriir uu kala dhexeeyo haddana Itoobiya Addis Ababa ay ku sugan tahay cunugeedana ay haysato oo xildhibaan Barkad Batuun uu dhalay cunugeedan uu xalaal yahay uunan wecel ahayn sida hore loogu dhawaajiyay aabeedu kuga dhawaajiyay in oo gabadhiisa la aroosin oo la uureeyay cunugaas uunan xalaal ahayn. Laakiin arintoo caddaatay cunugeeda inuu xalaal yahay oo wuxuu aabeeda ka sheegay ficilo aad u qaldan ay yihiin. Daawada ayadoo sii raacsiisay Soomaalida muuqaaladeena sida xun u adeegsanayaan iska daayaan. Qoftaas waa xaasid si xun ee noo calaamadeysay, xaasidnimada iska daaso. Adiga hadda waa daawanaysaa, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe dhaatid oo gambaleel ku furtid. Soo dhawow daawade. Mushtaaqay waad wanaagsan tahay. hadda raydna xageed ku sugan tahay Mushtaaqay? walaal hadda waxaan joogaa Addis joogaa Itoobiya qaar xaaladiisa iga waran. maxaa loo Burhaan Barkad Jaamac Batuun. Daawada waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa haddaad muuqaalka soo daawato fadlan waa naga codsi channelka noo qurxi haddii Soomaalinimo jirto channelka subscribe noo dheh gambaleelkana u furo. Waa intaasoo kaliya codsigeena daawade, hanaga tagin daawade, muuqaalkana noo like garee.